فيلكن وحب لما تاريخ markay 2008 Canada waxaarkayna wiil dhoojiye oo gaarigiisa oo soo shaqadiisa maalin lahayd waxa kale shaqadiisa ma uu bixin ku qoras barnaamijyada magaalada dadkuna ma xiiseeyaan qoraaladiisa laakiin wuxuu rajinaya maalin kamid inuu noqon doono wariyacan oo dadku dhan ay jecel yihiin maana isoo shaqadiisa sayuu siibanaya kadibna qatar ayuu aadaya halka wax isku baranayaan Sima oo saxafi hore wuxuu sheegay inuu rabo inuu wariyacan noqdo laakiin dadku qoraaladiisa xiiseeyaan laakiin Sima ayaa dhahay dadku xirmaan waxyaabo faa'iido leh haddii rabtina wariyacan noqoto waa inaad samaysaa wariyaasha kale waxay sameeyeen meel aysan tagin waa inaad tagtaa wuxuu sheegay in halkan iskaga tago oo aado meel aysan dadku waxba ka aqoonay warbixin ka keeno wuxuu tagay saaxiibkiisa wuxuu sheegay inuu rabo inuu Soomaaliya aado saaxiibkiisna wuxuu dhahay Soomaaliya waa meel dib badan qahar min qorax kulli aadi laakiin jey waa ka diiday oo ku adkaysanaya ala kulli jey saaxiibkiisa soo socday TV-ga wixii ka arkaya markab American oo afduman qolo burcabada Soomaaliya joogta lacag madax furashaan laga rabo dadka markabka iska lahaa jeyna wuxuu go'aansanay inuu burcabadeedka buug ka soo sameeyo jey isagoo hurda ayaa la soo wacay waxaan laga soo wacay raadiyo Garowe waxaana soo wacay wiilka madaxweynaha Maxamed Faroole wuxuu dhahay waa lagu ogolaaday in Soomaaliya buug ka qori ka dhow waan ku soo dhaweynayna isaguna aad ay ugu farxay wuxuu go'aansanay si uu dhaqsiyaha badan inuu Soomaaliya aado jey waalidka ayuu tagay wuxuu sheegay inuu Soomaaliya u socdo waalidkina wuxuu dhahay ilaaha ma ku geeyo silaali siyaariga xiro waa ka wala soo dardaarmaya kadib diyaarad ay soo fuuliyay wuxuu ku degay Boosaaso kadib Boosaaso iyo diyaarad kale laga siraayo wuxuu ku deeyay galkacyo intuu diyaarad sameeyay wuxuu noo sheegay in wax matalaad ay yihiin wixii khalad ka dhacay laga cafiyo dadka ku jira filmka dhan ay matalayaan ala kulli jey wax galkacyo ku soo dhaweynay Cabdi wuxuuna weydiinaya safarka sidoo ahaa laakiin jey wuxuu dhahay safarkii guud uu fiicnaa laakiin Cabdi wuxuu dhahay gacanta waxa la isku dilay ceeb baa u naqaanay jeyna wuxuu dhahay I'm sorry ma ogeyn laakiin halka dadka jooga Ingiriiska ma ku hadlaa Cabdi wuxuu dhahay ana ugu fiican qub qarac baan ku hadlaa Cabdi soo halka si wuxuu dhahay maragtaas Brock baan kala ku soo dhaweynay jeyna wuxuu dhahay Brock baan ma taqaanaa asaasna ana qub qaracan wax kale oo qoon dabarkooda aqoonayn Cabdi wuxuu dhahay maxaa uu qoon malaabihi waa aqaanay jey laakiin wuxuu dhahay anu Brock baan ima talo ninkan diyaanaya Cabdi ayaa wuxuu dhahay waa ogaa xataa kan diyaanku ma ogolad Brock Obama Cabdi diiqal waa kula jira Canada waa wadan seen waa wada waxba iska meelgelin ala kulli gaariga ay soo wada fuuliyaan kadibna soo dhaqaaqayaan iyagu wadada si maray Cabdi ayaa wuxuu weydiinay wax maqleen rabto in Soomaaliya buug ka qodho marka maxaa rabtaa in Soomaaliya ka qodho jeyna wuxuu dhahay waxaan rabaa in Soomaaliya ka qodho dimuqraadiyadeeda iyo sidoo kale wadamada dariska si loo macaamisho iyo sidoo kale qolada la magacbaxay burcabadeen iyagana buug ka qoran rabaa laakiin Cabdi ayaa wuxuu dhahay badbaadiyaha badda jeyna wuxuu dhahay maxaa ka wada badbaadiyaha badda Cabdi wuxuu dhahay dadka waxaan naqaan badbaadiyaha badda iyo ma naqaan burcabadeen sababtoo ah waxay badbaadiyaan baddeena waxayna la dagaalamaan dadka baddeena soo weeraray jeyna mid uu la yaabaya uu qoranaya ala kulli jey Cabdi soo gaaraya meesha u socdeen wiilka madaxweynaha Maxamed Faroole markuu soo dhaweeyay kadib wuxuu dhahay ninkan waxa la dhahay Cabdi waa ninka Ingiriiska noogu badiyay yani waa ninka qub qararacda Ingiriiska ku ahaa Maxamed Faroole hadalka sii wata ayaa wuxuu dhahay hore ninkan wuxuu ahaan jiray burcabadeed laakiin hadda wuxuu noqday nin fiican dawladuna la shaqeeya jey ayaa wuxuu dhahay badbaadiyaha badda wiilka madaxweynaha wax naaqaya wuxuu dhahay ma badbaadiyaha badda waa burcabadeed badda Cabdi ayuu tukiyaa dhih burcabadeed badda Cabdina hoos wuxuu dhahay burcabadeed badda waxa weeyaan in Cabdi uu taageersan yahay burcabadeedka sababta uu taageerin ay tahay nin hore uga tirsanaan jiray inuu yahay ala kulli jey Cabdi wiilka madaxweynaha soo socday waxay soo raacayaan gaari kadib inta wadada ku jiraan wuxuu dhahay wiilka madaxweynaha meesha halkaas waxa ku badan burcabadeed anagu burcabadeedka dagaal adag baa kula jirnaa laakiin meelahaas ay nooga dhuntaaneen maraakiibta badda casmarayso oo dhan dhibaato ku yihiin laakiin maalmaha kamid waa soo wada qaban doona dagaal adag baan la geli doonaa ugu dambeyn wax soo gaaray madaxweynaha Puntland xilkaas Faroole kadib markuu si fiican u soo dhaweeyay wuxuu dhahay jey ninkan waa waardiyaha gaarka jey wuxuu dhahay mahadsanid oo qush qarracad Soomaaliga si wallahi madaxweynuhu wuxuu dhahay Soomaaliga wax badan baa ka taqaanaba jey wuxuu dhahay xogaa wax badan baa iblaaban laakiin wareys ma ka qaadi karaa madaxweynuhu uu ogolaanaya laakiin raadi wareysiga ku qaadi lahaa ka xumaanay kadib dhulku la raacay kadib uu hagaagaya ugu dambeyn madaxweynuhu wuxuu dhahay anoo nin ganacsade iska haya dalkayga iyo dadkayga ii baahdeen iyagana iga dalbadeen in dadkan wax taro horumarna aan gaarsiiyo su'aal baan ku weydiinayay maanta inta wadada soo maraysa ma ku soo aragtay wax jaamacada ama iskoola wadada jey wuxuu dhahay may madaxweynuhu wuxuu dhahay marka nin jaamiciya tahay wax soo bartay heer gaar oo PhD wata oo dalkaaga iyo dadkaaga ay iskoola badan ay ku ooleen xanuun way wallahi qalbiga ka dareemaysa laakiin madaxweynuhu su'aal ayuu weydiinay wuxuu dhahay buugaaga maxaa rabtaa inaad u bixiso jeyna wuxuu dhahay burcabadeedka laakiin madaxweynuhu wuxuu dhahay burcabadeeda jeyna wuxuu dhahay ma waxa u bixiya burcabadeedka Soomaaliya madaxweynuhu wuxuu dhahay saasa xiisa badan burcabadeedka Soomaaliya saasa ku qurux badan tahay ala kulli ugu dambeyn jey wuxuu imaanaya gurigiisa kadib markuu si fiican u seexdo aroortii uu soo kacaya mise cunug yar oo fiirinaya alaabtiisi oo dooli ka cuneen yani alaabtada ma sigaariga la gasho sigaariga waa gashay aniga xataa maalin dhow shukulaato ma cunay dooligu waa idhibay aniga xataa wallahi على كل alaabtiisi wixiisi laga dhameystay kadib xogaa uu ka xumaanaya على كل Cabdi ayaa u iimaanay wuxuu dhahay wax ma rabaa inaan ku baro mid kamid ah barcabadeedka ugu waaweyn magaciisana la dhaho Booya kadibna jey uu farxaya uu soo raacay gaari ay soo wada raacayaan kadibna wuxuu u iimaanayaan Booya waa kan Booya libaaxa aan dhogorta lahayn waa ninka baddaas xoog iyo xiniyaha ku haysta kadib isagoo la hadlay ayuu geedka aadiya hoostiisa kadib wuxuu dhahay Cabdi geedka hoostiisa ayaan kula wada sheekaysanayna jey markuu geedka ugu tago wuxuu weydiinayaa su'aalo laakiin intuu su'aalo weydiin jey Booya ayaa wuxuu dhahay fanaanada wadato waa maxay jeyna wuxuu dhahay fanaanada basketball waaye Booyana wuxuu dhahay yaa lambarka 15 qaata jeyna wuu yaabaya wuxuu dhahay shujaac Booy nin la dhaha qaata ma qaadi magac uu sheegaya laakiin Booy ayaa wuxuu dhahayaa Soomaalida lama shanto aad bay ugu weyn tahay oo shan salaadood baa maalin kasta tukanaa sidoo kalena waxa dhahnaa beenaaluhu shan wajiilu leeyahay jeyna intuu ka yaa wuxuu dhahay you are master ala kulli jey boogis ayuu la soo kala baxay wuxuu weydiinay ma burcabadeed baa tahay Booyana wuxuu dhahay ma ay burcabadeed ee nin badiisa ilaashanaya ayaa ahay isagoo hadalka sii wato wuxuu dhahay waxaan nin badiisa ka kaluumaysta laakiin markasta badeed waxa soo mari jiray maraakiib waaweyn oo laga leeyahay Taiwan China iyo America kuwaas oo badeen wixii ku jiro dhan xaalufiyay sidoo kalena qashin ku daadiyay si sharci darro ah anigu marka
waxa ka qaada cashuurtii dawladdu badda ka qaadaan oo kaliya waligeena qof ma dilin jay wuxuu dhahayaa never way wuxuu dhahayaa never waligii qof ma dilin jay wuxuu weydiinayaa intee qoftiin booyan wuxuu dhahayaa waxaan nahay 100 qof oo kaliya jay wuxuu weydiinayaa sidee qofka ku soo xulataa booyan wuxuu dhahayaa waa inuu qof qorigiisana haystaa sidoo kale inuu dhinto diyaar u yahay booy ayaa wuxuu dhahayaa wax qaada may wadaan jayna wuxuu dhahayaa wax qaada ma wado kuma soo talagelin booy isla markii meesha waa kacaya waa iska soconaya meesha wareysiga bilaash lagugu siiyay miyaarta ku soo talagal ala kulli jay waa ordiya wuxuu tagayaa meesha qaadka kadib ruuc qaada mise mijin qaada adii qaad nin weyn buu keenaya kadibna cadda ayuu tagay wuxuu dhahayaa haye booy hadda uu tagi karnaa soo maahan isla markii cabdi booy ayuu geenaya booy ayaa asxaabtiisa marka qaadka loo kan aad ay u farxayaan kadib jay buugiisa qalinkiisa ayuu soo qaadan wuxuu dhahayaa sidee markabka u weerartaan booyana wuxuu dhahayaa ma waxaas wax weyn doonteen yarta baan qaadana markabka u baahanaa ayaan tagnaa kadib bir yar baa ku tuurnaa waa ku boodnaa xabadaheena la soo baxnaa kadib afduubana marka afduubana kadibna waxaan wacnaa dadka markabka iskala waxaan nahay 5 milyan baa leen ka rabaa soo dedejiya iyaguna waxaan 5 milyan ma hayno kadib gorgorta waxaan nahay 4 milyan keena way diiday iyaguna waxaan 4 milyan xataa ma hayno naga daaya kadib waxaan nahay 3 milyan baa ugu damay 3 milyan keena marka ogolaadaan kadib waxaan nahay diyaarad noo saara baarshuud noogu soo tuura kadib baarshuud ay soo saaraan waa ku soo tuuraan kadibna markabka saasa uga tagnaa xaafadaheena iyo guryaheena ayaa ku laabana caruurteena iyo lacagtaasina iyo haweenkeena kadibna qaadkeena yarka baan ku cunaa dhamaan wixii meesha joogo dhawa u sacbinaya xataa askariga u sacbinaya wuu xariifin baa tiin wallahi jayna wuu la yaabaya xariifnimadooda ala kulli taariikhdu way isbedelaysaa waxay noqonaysaa 28 bishii 2009 waxa arkaynaa jay oo gar u soo baxay lana hadlayo gabar wariye ah waxayna u sheegaysaa in saxaafadda caalamka ay ka gadan waayeen loona baahanyaa inuu buuga soo dhameystiro wax badan ay ka maqan yihiin jayna midda aad iyo aad buu ku xanaaqaya dhulku laadaya barkitu laadaya iyo xanaaq dartii jay wuxuu tagay cabdi wuxuu dhahayaa sax warbaahinta caalamka way gadan waayeen warbixintii anaguna mii wariicaan wax rabaa inay caawiso cabdi wuxuu dhahayaa sax wax dhib lama ahan hadaa mar naftaada khatar soo gelisay rabtoon inaad Soomaaliya warbixin sax ah ka qodho waa guuleysanaysaa insha Allah mar dhow jay wuxuu dhahayaa sax waxa iga caawisaa markii afduuba ah oo burcabadad gacanta ku hayaan baan rabaa inaan fiido ku duubo midda iga caawi cabdi wuxuu dhahayaa waxa macquul ah madaxweynuhu ma ogolaanay adiga in naftaada khatar gashaa laga yaabaa jay wuxuu dhahayaa hadda halkeen marka cabdi wuxuu dhahayaa wax kula siinay burcabadadka ugu weyn oo magaciisa la dhaho garaad jay midda uu ku farxaya si degdeg ah ay u soo aadiyaan kadibna wuxuu u imaanayaan garaadna waa kan gaarigiisa ayuu ka soo degayaa yeh waa libaaxan doorta lahayn ninka lacagta wali waa ka muuqataa waliba suud iyo waxba u xiran ala kulli waa u tagayaa kadib jay mijintiisa qaadka buu hore ka dhiibaya si xog uu helo wuxuuna weydiinayaa su'aalooyin dhowr ah laakiin su'aasha ugu muhiimsan waxa weeye markab kasta miyaa weerartaan garaadna wuxuu ugu jawaabayaa ha markab kasta qum iyo wato iyo nimcooyin wato oo lacag laga heli karo waa weerarnaa jayna warbixinta oo dhan buu qoranayaa maalinta dambe soo warbixin laabto ku qoranaya waxa uu imaanaya cabdi wuxuu dhahayaa kaalay burcabadka markab ay haystaan ba ku haya kaalay fiidiyowga u baahnid ka soo duub jayna midda uu ku farxaya si degdeg ah ay gaariga soo wada raacayaan laakiin intii wadada ku jira askariga ayaa wuxuu dhahayaa meesha u socnaa ayl baa la dhahaa haddii qabiilkaaga lagu weydiin waa inaad dhahdaa reer boodhari baa la dhahaa jayna wuxuu dhahayaa reer boodhari askariguna wuxuu xanaaqaya maaha si fiican u xifdi waa reer boodhari yani qabiil maaha reer boodhari anaa samaystay ninka waa caddaana way iska fahmayaan inuusan qabiil lahayn caddaan qabiil ma lehe inta wadada kusii jiraan waxay sii arkayaan qaburo kadib wuxuu dhahayaa cabdi meesha waxa ku dhintay dadka halgamayaasha u halgamay dalkan gumaystayna si adag ula dagaalamay kadib waa digayaan waa u ducaynayaan ugu dambeyn waxa soo gaaray meesha u socdaan kadib waxa soo dhawnay odayga kan wuxuu weydiinayaa qabiilkiisa yani qabiilkiisa maxaan ku cadiyaan ninkan kadibna isaguna wuxuu dhahayaa reer buthdari iyaguna waa ku qoslayaan waxay dhahayaa reer buthdari hada khaldana oo qabiilkiisa weydiin ninka qabiil ma leh waa caddaan ala kulli si fiican ay u soo dhawanayaan kadib maamada ayaa waxay dhahaysaa wiilkii wax ka codsanay inaa xog fiican ama si fiican ama waji fiican ay ka gudbiso Soomaaliya waxaan ka rahaystaa markasta dalkayga oo la caayo marka waxa ka rajaynaya xog fiican oo sumcadeena kor u qaadaysa inaad gudbiso oo dadka la wadaagto isaguna wuxuu dhahayaa insha Allah waa gudbin doonaa ala kulli jay iyo cabdi ciidanka waardiyin soo socodaya wax soo aadaan dhinaci doonta dabcan waa taddoonti waxana waardiyin iyo ciidanka kadib wax hor imaanaya ciidanka jay wax lagu dhahay gaariga adiga ka soo deg waxa baxaya ninka askariga cabdi wuxuu tagay ciidanka waxay dhahayaan wax rabnaa inaad doonta duubano waa ka kadib ciidanku weydiinaya waxay dhahayaan may cidna ma fasaxeen adiga markuu meesha buu qadho waxa soo baxaya jay wuxuuna dhahayaa anigu wariyahay wax rabaa inaan xog ka duubo bis wax kale sameeyo kadibna waxa la ninka gaangiska wuxuu dhahay wax la soo hadlaya mas'uuliyiinta meesha inay ku ogolaadeen in kale bal naga warso jayna aad iyo aad ayuu u farxay laakiin markuu gaariga soo fuuro askari ayaa wuxuu dhahay maxaa u soo baxday naftaada ayaa khatar gelisay in xabad kugu dhuftay ayaa ku sigatay jayna wuxuu dhahay aniga dartii ayaa la ku ogolaaday soo bixin nolol ma ogolaadeen askarigu wuxuu dhahay naftaada ayaa khatar gelisay ala kulli jay asxaabtiisa wuxuu ku laabanaya meesha ka imaadeen iyagoo ka hor sugay ninkii doonta maamulaha ka ahaa laakiin habeenkii markuu seexdo aroortii waxa ku soo jirmaanaya ninka askariga hal ugu bulu dhacaya kadib uu kicinaya kadibna wuxuu dhahayaa doontii xalay dhaqaaqday way tagtay waxay ku maleeyeen tahay askari sirdoon oo Mareykan ka socda Soomaali caddaan maxaa kala haysta nin kasto cad wax moodaya inuu Mareykan yahay jayna mid aad ayuu ugu xumaanaya ala kulli waqti uu isbedelaya taariikhdu waxay noqonaysaa 13 Abriil 2009 waxaan arkaynaa ninka askariga oo Amerika ku xinaga dileen 3 nin ninka jeel dhahay Soomaalida Amerikaan ba u maleynaya naftiisana khatar ayay ku jirtaa laakiin maxaa fur la yahay wuxuu dhahay inta ka badan naftada amaankeeda ma sugi karno cabdi ayuu tagay wuxuu dhahay ninkaas sida u dhaqsiyaha badan hadda ay boorka ku celi si uu wadankiisa ugu laabto jayna mid uu ka xumaa ala kulli jay cabdi ayaa banaanka isku arkay kadib jay wuxuu dhahay lacag ayaa la soo diray marka bangi ma noo dhow yahay cabdina wuxuu dhahay bangi halkan uu ku yaalaaba kadib jay wuxuu dhahay marka la booyaa ma la kulmi karaa cabdina wuxuu dhahay diyaar way saxmana ku caawinaya markastana garabkaaga taagan yahay taa kula dhimanaya cabdi way sugnaay bangi waa maqashay meeshaas maqashay khumkhum iyo waxba jira halkaas ka aragtaa waa ku dareem cabdi ala kulli cabdi wuxuu dhahay cimaamadan xiro wajiga qarso si Soomaalidu ku arkin hadii kale way ku dilayaan kadibna jay cimaamada ayuu wajiga ku duubanaya ugu dambeyn labadu soo imaanaya
booya waa kan libaaxan dhogorta lahayn kadib markii uu yimaado booya wuxuu dhahay wadankan wuxuu soo saari jiray daasadaha kalluunka maantana waa ku shiish baranayna xabada ayuu dhiibay jay wuxuu dhahay toogo kadib jay wuxuu dhahay igada laakiin booya ayaa wuxuu dhahay ha ka baqin waa jacaylkaaga qabso ugu dambeyn jay waa ku turturaya waa la helaya adiga marka ugu dambaysa kadibna way wada farxayaan labadooduba ala kulli booya wuxuu dhahay xog badan u baahan tahay inuu xog badan ma hayo laakiin meesha ugu fiican ay ka heli karo waa qaadka raac meelaha qaadka lagu cuno tag meelahaas xog badan ka helisay jeena mid ayuu qaadanaya wuxuuna go'aansanaya meelaha qaadka lagu cuno inuu xog ka raadiyo laakiin soo raadin meelaha qaadka lagu cuno waxa arkay ciidan waxay dhahay waa ka Amerikaanka dadka naga dila soo qabta kadibna ya Allah wuu soo baxsanaya oo meeshii deganaa buu soo gelaya dabcan meeshii deganaa ciidan baa jooga meesha lama soo geli karo meel aad siraayo amnigeedu adag yahay way ugu dambeyn jay wuxuu go'aansanaya inuu wadankiisa ku laabto kadib saaxiibkii Cabdi ayaa airportka geeniyay jay wuxuuna ku dhahayaa saaxiib waxa rajinaya buuk inuu ku qadmi doono waan ku kalsoonaa inuu guuleysan doonto noqon doonto wariye caana jayna faraha ayuu saa isku saaraya Cabdina wuxuu dhahayaa maxaa ka wadaa jayna wuxuu dhahayaa rajo waa rajinaya aniga xataa wallahi faraha isku saaraya waa rajinaya in fiidoo ka dad badan gaari doono sidoo kale rajinaya asxaabta fiidoo ka dhamaanto in like saari doonaan share gareyn doonaan waqti badan baa wallahi galiyay juhdi badan fiidoo ka please ala share gareeyo asxaabtina la wadaaga على كل جي ديارات أيو فوليا وقدمين وقت دير كدب جي ودن كيس أيو كسلابانية مركو سيدا ديارات وقد جو حركة فريمان بدن أو سوغار والباهين تقوى وين الله صهال اللي سوده سومالي أيام رمنا حكه هلنا على كل عبار مركو سعود واحد قباني عينك كد وحوي الدنيا باسبور كيسا كد بنتك حيان بوحي كينيا صديقة حد صديقة وحكو صوب بقرية تليها جود عينك كد بنروح لها يوحى رمنا حكه وقاد سوماليا جي ويابا يوحى لها محتم حب بيا يقربتها تليهم نروح لها صوبتها هاد سوماليا وكت هرجت كنيات يا أمريكان مركو حرمنا حكه يقصيصو لكن جي فامل كيس أيا سو عيا كد تليو وحده فاملكي ما لهالدي كرا تليون وحده waa kala markii jaanis soo ila soo wadaag ala kulli jey wuxuu tigiyaa saaxiibkiisa ku dhiirigeliye Soomo kadib wuxuu dhahay xogta Soomaaliya ka hal buug lagu qori buugaag baa laga qori karaa saaxiibkiisna wuxuu dhahay waa guuleystay waana dadaash naftaadana halis gelisatay guuleyso waqtigu uu soconaya uu isbedelaya waxaan tagnaa 2012 bishii March waxaan arkaynaa jey oo dhex fadhiyo qolo Mareykan waxaan weydiinaya buugaaga Soomaaliya ka soo qordhay adduunka dhan buu gaaray dadka dhan way akhristeen waxaan rabaa in xog naga siiso Soomaaliya isaguna wuxuu dhahay Soomaalidu waa dad fiican adduunka nacado kuma ah laakiin xeebahooda sababtay waxyaabaha u sameynaya waxa in dhibaatooyin badan lagu hayo adduunka dhan wuxuu sheegay in Soomaalidu aysan dib wadin iyaga dib loogu wado hantidooda iyo xoolahoodana si xaq dara markasta lagu qaato markasta lagu burburiyo dhibaato weyn caalamku u geysto xeebahooda wuxuuna ku codsanay in Soomaalida dhaqanka kula dhaqman ay wax badan ka bedelaan waji saaxiibtinimada ay ku eegaan على كل وحنا نرشي قرارك إن لو كنا صدق تمكي سياسة أمريكا واحد بدن سومالي كبدي جي وحلينا شكرا جحيم مهم أنه قد بيساعدون كنا بواحد جالس إن سومالي إنسان دب ودي إيجا دب لغة ياد بوم ماستة على كل أصحاب الفيلم كنا تسنو إيجا كان الجيل ده ينوسو شكرية وحنا رجينا يعني إنا إيش كريسانين سبب توافلين كإتا سولنا بسوقر ركوسو رفاضي نبض بسومر أدياد بوم ماستين مدة كلام دليل وحنا كعصني هل وحنا كعصني بليز فيديو كشر قريب بليز